Soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض دعوة ديال ميل كستو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhinaca falanqaynta ee siyaasadda ee bulsha t v waxaana khadka telefoonka si toos ah ugu jira oo maanta inoogu martiya barnaamijka dhinaca falanqaynta ee siyaasadda dunida maxamed axmed cige oo dalkaasi Canada ku nool isla markaana ah muddo ka soo shaqaynayay idaacadda la yiraahdo CKCU radio oo dalkaasi Canada isla markaana ah nin siyaasi ah oo wararka ama doodaha oo kale ku baahiya barta uu ku leeyahay baraha bulshada ee TikTok-ta maxamed arrimo badan baan wax ka weydiin doonaa oo ay ka mid tahay xaaladaha ugu dambeeyay ee Somaliland iyo arrintii dhinaca dhacdadii madaarka magaalada Hargeysa madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo arrinta Boorama ee waqtigan taagan iyo arrimo kale oo xasaasi ah maxamed marka hore soo dhow ma maqashaa aad baan ku maqlay ku salaamo waan dhawahay adiga iyo bahweynta bulsha TV aad baan idin salaamaya waayahay soo dhow marka u horeysa arrinta xaaladaha u dambeeyay ee Somaliland iyo xagga iyo Boorame maxaa kaaga baxay ee aad kala socota Umar Ali waad baan ku salaamaya waan dhawahay adiga iyo bulsha TV aad baan idin salaamaya waa TV kaliya runtii ummadda Somaliland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si cadaalad oo sinaan ugu adeega aad baan idin salaamaya wax walba mar walba wixii waaqici jira waqtigeeda ka hadla runtii Somaliland maanta xaaladeedu waa xaalad shacabka Somaliland ay intaha ku hayaan maanta maalin ay kaliya Somaliland may soo marin waxaan ognahay dalka maanta inay ka arrimiso oo ay garwadeen ka tahay xukuumadii iyadoo mucaarida dalka Somaliland kala qobaysay ee qarannimada iyo jiritaanka Somaliland la dagaalamaysay cid kastoo cadow ku ah Somaliland ay gabood ka dhigteen oo ay Somaliland dhan walba ka soo furfuraan iyagoo maanta ka arrimiya waxa Somaliland maanta aad arkaysaa oo aad dareemaysaa sanadkii hore iyo sanadkan inaanay isku mid ahayn cid kastoo cadow ku ahayd jamhuuriyadda Somaliland oo diidaneed horumarkeeda iyo madaxbannaanideeda iyo qarannimadeeduba maanta ay ku sugan yihiin dalka oo iska soo galayaan oo maanta aan la kala lahayn Somaliland qarannimada iyo jiritaankeeda meesha ka baxay waxaana aad arkaysay dhacdadii ka dhacday airportka magaalada Hargeysa oo madaxweynaha sida sharafta leh iyo milgaha loogu wareejiyay aan xataa la qiimeyn aan la darajin baabuurtii iyo dadkiisii galbinayay oo wasiiradiisii hore oo la socday in xabad lagu furay wada weyd madaxweynuhu markaa isagoo xeerinaya inaan shacabka iyo isku dhicin xukuumaduna oo aan gadood dhicinna uu door biday inuu isagu iska lugeeyo dhawaad 20 daqiiqana uu lugeynayay halkii lagu joojiyay baabuurta laga rabay la airportka waa dhan ugu ku ah Somaliland in madaxweyne dalkan soo maray la xabadeeyo airportkana caalamka meel kasta iyo mandaqada uma dhacdo in xabadi ka dhacdo way airportku waa albaabka laga galo dal hadii albaabka laga galo dal xabadi ka dhacdo gudahana waxa la yiraahdaa wuxuu ka sii daray marka dhacdadaas iyadoo dhacday haddana xukuumadan Somaliland ku soo shirantay ee garowdeenka uu ka yahay Cabdiraxmaan Ibro kamo hadal maalintii ku xigtay wuxuu u dareynayay bandhig loogu yeeray oo laga hadlay arrinta IDF iyo waxa khudbadiisii wuxuu ku bilaabay inuu ka hadli mayno dan shakhsi laakiin dan qaran ku hadlana isagoo oo durxul uga dhigayay arrintii airportka inaan iyo isagoo waxba ka soo qaaday macnaheeduna inuu kula socday amarka ciddii bixisay in madaxweynaha la arqaladeeyo in dhibaato la ka dhacdo uu isaga iyo wasiiradiisa ku wada socdeen kaasoo shacabku ay la yaabnaan dhacday oo meesha caalamkana iyo dadkii Somaliland ba isha ku hayay ay sawir ka siisay haddana waxaa jirtay dhacdo kale oo aynu ognahay ama isla maanta ka socoto gobolka Awdal magaalada Hiisa Boorama iyo guud ahaanba Awdal degmooyinkiisa taasi oo muddo ay muran ay ku dhex taagnaa walaalaha ay wada degan gobolka Sayla magaalada Sayla oo ay doonayeen in xeer ay ciise la yiraahdo ay ku dhigtaan degmadaasi Sayla balse ayuu ku soo horjeedeen dadka kale deegaanku xukuumaddu arrintaa way xalin kari weyday mudday soo jiitamaysay waxa dhacday markii dambe in ay soo saarto qarar ah waanu joojinay buugga wasiirka arrimaha guduhu hadlo isagoo askii madaxweynaha ku hadlaya kadibna 7 cisho kadib in Ismaaciil Cumar Geelle uu la soo hadlay Cabdiraxmaan Ciro amar ku siiyay dib arrintii uu hadlo odayaashiisa uu keeno jiiba dhacday odayaashu loo yeeray wasiir joogay iyo Awdal joogay inta baabuur ugu diray madaxweynuhu ayuu ku soo dhaweeyay madaxtooyada dib buu arrintii soo furfuray oo yiri arrintan dib aynu galno
odayaashii markii ay saacado badan sida qaateen ay diideen arrintaa sidii hore go'aan ku bixisaan ku taaganahay ka noqon mayno anaga go'aan soo saarnay iska taga buuri go'aankii maalintii shalay tolu soo saaray in lagu qabanayo buugi walaba hadal oo aan islahayn taasna waxay keentay kacdoon shacab ay dhalisay waayo waxaad arkaysaa maanta somaliland inan buugii shalay toole dalkan doonayay inay god madow ku dhacdo somaliland la dagaalamay qarannimadeeda jiritaankeeda madax bannaanideeda in maanta ay ka arrimiyaan somaliland ismaaciiltuu doonaya bay noqotay wayna ogeyn cadow ka xun ismaaciil cumar geele maynaanu lahayn waa arrintii keliya MOU tii ka dhacda bayna ogeyn dagaal kula jiray somaliland meel walba u maray isagiiba garwadinka ah waayo waa xukuumaddu shalay lacagta kusoo bixiyey uu soo dhisay isagii xasan sheekh maxamuudda marka maanta tii cadowgay noqotay inuu ree awdala lugta u qabto oo yidhaa way dhacday wayna buugaasi uu soconaya uuna dhacaya 14 bishana waa la qabanaya tii waxay keentay dhimasho fara badan oo ka dhacday gobolka awdal oo uga tacsidinayo ree awdal la ilaahay ha u naxariiso intii dhallinyaradii ku dhimatay inta xanuunsanaysa ee dhaawacana rabbi ha u boogadayo waa runtii waa arrin fool xun arrintaana waxaa ka dambaysoo keentay xukuumadda maanta inuu hadlo oo lagu qasbo inuu hadlana waa u ayaan daro isagoo qaladkaa sameeyey uu raaligelin ka bixin lahaa uu odhan lahaa waanu khaldanay laba amaroo kala duwan baanu soo saarnay annagaa ka dambayna wixii dhacay qaladkana annagaa leh buuggaana waanu joojinayna ka odhan lahaa ayuu keenay inuu ayar shacabka waay maxamed waxaad sheegtay inay wada hadleen madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha somalilan arrintaasi dadka u faahfaahi sideed ku ogaatay adigu waxaa jirtaa aynu la soconnaa go'aamadii hore uu soo saaray oo ay beesha kasoo jeeda gobolka awdal ay ku qanceen in buugga la joojiyo iyo dadkii diidanaa inuu halkaasi ka dhaco xeer buugga xeer ciise kadib waxay sidaan ku helnay ilo xoogaala oo aanu jabuuti ka ogaanay ismaaciil si toosa ayuu ula soo hadlay madaxweynahan maanta somaliland ka arrimiya arrintaasuu isna galay uu ku yidhi dib arrintaa loo soo galo marka waxaanu ku ogaanay ilo xoogaala oo jabuuti ku sugan oo noo soo sheegay in arrintaasi jirto waxna ka jiraan inuu ismaaciil ka dambeeyo arrintan dabadana ka riixayay inuu xeerkani ma socdo siilacna ka dhaco go'aankii hore xukuumadduna ay ka noqoto waana ta keentay xukuumaddu inay go'aankii hore ka noqoto tan maantana ay ku adkaysato in dhimashada intaa leegna ka dhacdo dhaawac intaa leegna ka dhaco iyo kacdoonka intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg ku yimaado gobolkii awdal oo maanta la doonayay awdal oo gobol dihin waxaa loo socday balaabiig wuxuu ahaa awdal oo cadowga somaliland ay raadinayeen muddaba waxaynu ogeyn daameeg wuxuu ahaa sool iyo laascaanood walow ay qayb ka ahaayeen xukuumadda laftoodu markii ay mucaaridka ahaayeen mustabeedka xisbiga wadani ay ka qayb qaateen shirarkii jigjiga iyo nairobi oo ay qayb ka ahaayeen kacdoonka shacab ee gobolka sool markii gobolka sool ay gacanta ku dhigeen waxaa dhacday aynu la soconnay garaadka guud ee gala dagaalku inuu jigjiga yimid kula kulmay ugaaska guud ee gadabuursi isagoo halkaa oraa ka odhanaya inay gobolka awdalla boodhka iska tumaan oo mar kale iyaguna heeriyada iska tuuraan somaliland oo ay qaataan sidaas sooloka iyaguna ay madax qaataan maamul goboleed ka madax bannaan somaliland taas oo muddo la dhiraandhirinayay cadowga somaliland lacaga ku bixinayay ismaaciil cumar geele noqoto hadday noqoto soomaaliya iyo cid kastoo cadow ku ah jamhuuriyadda somaliland ta arrintii la waday maanta waxa u fuleediyey oo lugta oo ku qabtay oo ay doonayeen socodsiye xukuumaddan meesha joogta oo tii cadowga ay doonayeen maanta noqotay ismaaciil cumar geele iyo kooxdiisu doonayeen ay noqotay umay socon xeer ciise iyo laba beelood meel isku haysta laakiin muhiimadda loo socday waxay ahayd kicinta gobolka awdal in gobolka awdal sidii soolo kaloo la kiciyo in somaliland dhibaato la geliyo in horumarka iyo qarannimadii jiritaanka somaliland meesha laga saaro in la yidhaa awdalna maanta wataa waxay rabtaa maamul goboleed sidaa soolo kale marka arrintan loo socday intaasay ahayd waayahay arrintan uu kaga hadlay madaxweynuhu arrinta gobolka awdal iyo rabshadaha dhimashada iyo dhaawaca keenay madaxweynuhu wakhti yar oo imika aynu soo dhaafnay ka hor buu hadlay hadalka uu madaxweynaha somalilan ku hadlay ma aha mid munaasiba oo sidii la doonayey dadku ma ku qanceen waa madaxweynihii somaliland ee loo doortay waxay ahayd dhibaatadan uu isagu keenay markii ugu horreysay kacdoonku dhacay isla habeennimadkii inuu soo baxo oo tvga soo hor fadhiista uu la hadlo shacabka dhibaatada ku habsatay gobolka awdal laakiin inuu macaahu hadlo
saacado ka hor inuu hadlo oo weliba lagu dhiiri markuu arkayna siyaasiyiintii iyo dad ka soo jeeday gobolka cuqaashi cid kastoo haldoorka gobolka ay hadleen oo si carara u hadleen shacabkiina weli kacsan yihiin rasaastuna weli socoto inuu hadlo lagu qasbo la yidhaahdo hadal waa u ayaan daro iminka inuu yidhaahdo ciidamadan iga saaraya markii ay dhaawac ay geysteen dhimashada waa u ayaan daro kolley shacabka aan ka dareemay ree awdal hadalkaasi dhagmay digin weli alaankaana saygu maqaalaa meelaha qaarkood iyo degmooyinka gaarkood ku soo dhakacdo way madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi hadalkan soo jeediyay uu kaga hadlay arrinta awdal yaa ku qasbay baad leedahay waxaa ku qasbay dadkii deegaanka soo jeeday oo kacsan markuu arkay ayaa waxa u tagay xildhibaano fara badan iyo siyaasiyiin fara badan oo hadday noqoto baarlamaanka iyo wasiiradii ka soo jeeday gobolkuba waxaa kale oo anigoo aan ilo xoogaalo ku ogahay maanta madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland inay madaxtooyada joogo hortiisa isku dhaceen wasiirka madaxtooyada Khadar kadibna madaxweyne ku-xigeenkii ka baxay dalka weli alankaana uu ka maqan yahay caduu ku maqan yahay taas macnaheeduna waxay keenaysaa in carada madaxweyne ku maqan yahay dhibaatada gobolka awal lafteeda ku yeelato marka arrimahan socda ee gobolka ka socda waa qayb buu ka yahay madaxweynuhu waxayna xukuumaddan ugu talagashay furfurka Somaliland ma xukuumadda cadka qarannimada iyo jiritaanka Somaliland ku timid weyn ognahay way maxamed haddana waxay wadaa qofkii Somaliland way maxamed waxaad sheegtay in madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland uu dalka dibaddiisa ku maqan yahay adigu waxaad joogtaa Canada sideed ku xaqiijinaysaa oo aad dadka ugu cadaynaysaa arrintaasi in madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland uu maqan yahay anigu kulley waxaan aanan hubin kuma hadlo waxaan had iyo jeer hubiyaa oo la hadlaa dad ku sugan Somaliland walow waxaa ku horgalay dad madaxtooyada u dhow oo arrintaa ii xaqiijiyey in madaxweyne ku-xigeenkii isku dhaceen wasiirka madaxtooyadu kadib Cabdiraxmaan Erna ma jooga arintana aanu dhex gelin madaxweynuhuna ku-xigeenkiisa qosliina meesha ka baxay sidina weli alaanka ku maqan yahay aan ciidina ka daba tegin arrintiina aan cidi gelin marka weli cara uu ku maqan yahay miyad aragtay weli isagoo hadlay xataa dhacda ka hadlaya miyad aragtay meel hadalka ka darsaday ma jirto dalka uu ka maqay caraanu ka maqay wayna og yihiin inta madaxtooyada joogtay wasiirada u dhow iyo inta ku xiba arrinta kale ee labaad ee iyaduna isha lagu hayay ee la doonayay inuu ka hadlo madaxweynaha Somaliland ama uu caddeeyo maalmaha u dambeysay la sugayay arrinta madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo rasaasayntii ka dhacday madaarka marka laga yimaado wasiirkii duulista iyo hawada ee Somaliland oo isagu maalmahaasi ka hadlay oo dadkuna aanay ku qanacsanayn arrintaasi adiga siyaasi ahaan maxamed see kula muuqataa horta wallahi waa ayaan daro wasiirka waxaanu daawanay inuu laba hadaloo kala duwan uu isagu ku hadlay xataa hadaladiisu waxa beeniyey wasiiradii xukuumadda Muuse Biixi iyo isaga sii galbinayay sida Siciid Sulub iyo Saajin iyo waxay cadeeyeen inay runtii waxa ku hadlay ay been tahay oo iyaga laftooda ay arkeen inuu laba kala hadal sheegay maanta ma yahan wasiirku inuu hadlo ay ahayd inuu madaxweynuhu intuu halkaa u soo baxo uu hadlo oo shacabku u sheego arrinta dhacda waan ka xumahay madaxweynaha hore sharafi karaamiga mudan yahay arrinta dhacdana raaligelin baan ka bixinaya inuu shacabka Somaliland si sharaf iyo qiimo u qanciyahay anagii madaxweynuhu waxay noqotay maalin kadib isagoo meel ku qodbeynaya inuu yiraahdo maanta ka hadli mayno dad shakhsi ee waxaynu ka hadlaynaa tan qaran baan ka hadlaynaa arrintii madaxtooyadana madaxtooyada ka dhaxaynayado airport ka dhacdana uu ka soo qaaday waxa waxba ahayn markaa macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay raalli ka ahaayeen in askarta loo diyaariyey in madaxweynaha la rasaaseeyo waayo qof lagu riday waa qof dil loogu talagalay marka in madaxweynaha ka horreeyey ee weliba sida milgaha iyo sharafta ugu wareejiyey isagoo aynu ognahay toddobadii sano waxay dhibaatadii lagu hayay haddii sidii doorashada ku dhixii oo dhan nagoo ognahay cadowgii loo soo raacay haddana inuu qaranimo iyo wanaag muujiyo sharaf ugu wareejiyey in haddana isagoo sii ababaxay oo aan wadan ciidan wadan oo aan wadan dad fara badan oo airportka gelaya in labadii baabuur iyo wasiiradii la socda la joojiyo oo ayaan daro weliba la xabadeeyo oon madaxweynuhuna ka hadal wasiir ka hadlay macnama samaynayo madaxtooyada wasiirka laga soo amray cidda amarka bixisana oo madaxtooyada askartan lale waa la xidhaynaa waa laba askar oo amar la siiyey in lagu qanciya waa ayaan daro halkii ka soo baxday amarku inuu ka hadlay ahayd laakiin waxaynu arkaynaa in tan loogu talagalay in la kiciyo shacabka Somaliland iyo taageerayaashii madaxweynihii hore inay kacaan oo ay gadood sameeyaan deetana uu dagaal dhaco intay doonayaan xukuumaddani waa in dalkan dagaal sokeeyo ka dhaco in la iswada laayo deetana ayagoo dalku inta ka liitaa in la yidhaha Soomaaliya hoos gelina waayo
cabdiraxmaan ciro shirka waxa uu fadhiya oo hogaaminaya kuwii shalay tolo Soomaaliya qarannimadeeda iyo jiritaankeeda ka soo horjeeday kuwii midnimada Soomaaliya raadinayay ayaa maanta hogaaminaya waxaad arkaysaa inuu maanta madaxweynihii hore ka qiimo batay kii shalay tolo ciidanka qaranka aflagaadeynayay kii Soomaaliland lahaa waa mashruuc xabashiyeed waanu ognahay laascaanood wuxuu ka sameynayay in maanta intaasoo lacaga lagu bixiyo hoteeladii five starka magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyo in la milgeeyo la maamuuso oo isaga saa loo qadariyaa Nicolas Tera oo shalay nugan wuxuu dhigayay oo maanta deeqato dadkii u halgamayay Soomaaliland iyo madaxdii Soomaaliland iyo askarigii dalka u dhimanayay iyo kii afku difaacayba qarannimada Soomaaliland waa maanta taagan waana mid loogu talagalay in shacabka Soomaaliland la nacsiiyo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland maanta socota hadhowna la doonayo midnimo Soomaaliland la raadiyo way maxamed arinta atri madaxtooyada ayaa amarka laga bixiyay arinta madaxweynihii hore Soomaaliland arintaasi maxaad ku cadeynaysaa in madaxtooyadu amarka ay bixisay lagu rasaaseeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland way ku cadahay waayo haddii ayna xukuumaddu ama madaxtooyada amarka aan laga soo bixin may aamuseen madaxtooyadu qaar bay soo saari lahayd wayna hadli lahaayeen iminka inta ka soo wareegtay waad ogtahay weli alaanka kamay hadal kamaanay jawaabin raaligelina kamay bixin shacabka Soomaaliland arrintaasi kamay dareen xilin macnaheedu waxay ka dhigan tahay arrin ay raali ka yihiin wasiir hadlay oo afyeeshiga jooga macna sameynaya waxa macna sameynaya halkii amarku ka soo baxay in amarkii madaxtooyada inay iyagu hadlaan waayo iyaga dalka halkaas laga xukumaa madaxtooyada laga xukumaa inuu cabdiraxmaan hadlo oo yiraahdo arrintaasi annagu bari baan ku nahay waa dhacday ummadda Soomaaliland iyo madaxweynihii hore waan ku raali geenaynaa arrintaasna cidii falka geystay waan ku jirnaa baaritaan inuu aan saaw hadleeyahay laakiin wuxuu sameeyay ignoring maalintii wadaagga soo gudbadeynayay muxuu soo qaadan gudbadiisii taas macnaheedu waxa weeyaan war anaga sameynay maxaa sameyn kartaa weeyaan waa isku dhac shacabun way maxamed dadkan siyaasiyiinta Soomaaliland ee dibadda jooga maanta waxaad joogtaa Canada siyaasiyiintaad ka mid tahay idaacad weyn oo dalkaasi Canada ayaad ka shaqaysaa ma la odhan karaa dadkan dibaduhu iyagoon dee xogtiiba haynin unbay arrimo badan intay wax urursadaan iyaga laftigoodu dabkii bay dhinac ka sii shidayaan qaranka Soomaaliland labada dhanba waa loo turjuban karaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay qurba joogta Soomaaliland waa kuwa dalka maanta halkaas soo gaarsiiyay dhismihiisa iyo horumarkiisa ka soo qayb qaatay dadka siyaasiyiinta ee qurbaha ku suganina runtii wala heli karaa in iyagu caadifad qabiil iyo arrimo ku shaqeynaya oo iyagu kicinaya dadkooda laakiin inta badan waxay falanqeeyaan siyaasadda Soomaaliland waxay ka hadlaan horumarka Soomaaliland waayo ka gudaha ku jira waxaanu ogay buu iyagu ogyihiin oo had iyo jeer iyagu waxay ku foojigan yihiin waxa ka socda caalamka waxa Soomaaliland laga yiri iyo Soomaaliland gudaha waxa ka socda waraysiyo badan bay galaan hal door badan bay ku xidhayaan siyaasiyiin fara badan marka iyaga laftooda waxa markaa ka dhici karta inay ugu xoogaal badan yihiin qofka siyaasiga ku sugan gudaha Soomaaliland oo wixii ka dhacay saaka halkan laga ogyahay ama qurbaha laga ogyahay Soomaaliland ee ka gudaha jooga oo idaacadu ka dhageysto ama TV-da ka maqlo waxa maanta dhacay laakiin ka qurbaha jooga sida markaaba waa iyadoo TV la gaarin musu ay maqlayaan marka dad badan oo xoogaal oo siyaasiyiin way jiraan waxaan aaminsanahay marka in dad badan ugu laxajala badan yihiin dad badan oo gudaha ku sugan oo qurba joog waayo waynu ognahay nin walba dalkiisa ayuu jecel yahay inuu dalkiisa horumaro in dalkiisa meel gaaro ayuu jecel yahay laakiin maanta qurba joogtu waxay u calsoonaysaa halkii Soomaaliland marayso ishay ku hayaan Soomaaliland isla toonayno ogeyn mandaqada halka taagneyd Soomaaliland shalay ogeyn cadowga farabadan yeelatay maanta in cadowgeeni ka arramiyo Soomaaliland aan shalay ka difaacaynay runtii waxay shacabka Soomaaliland wali alaanka madaxa la taagayaan iyo xukuumadda meesha qabsatay buurta gacliba way xukuumadda Soomaaliland baad jeedaa xukuumaddan Soomaaliland waayahay maxaad xal u aragtaa adigu inaad arrintaasi maxaad xal u aragtaa labadaa dhacdo adoo soo koobaya waa wanaagsan halku wuxuu noqonayaa anigoo shacabka Soomaaliland la hadlaya iyo cid kastoo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland ba jecel halka kaliya aynu maanta haynaa waa inaynu intaynu gacmaha isqabsano waynu aragnaa dalkeena halku marayo in cadowgi maanta ka arriminayo in goboleedeena la kicinayo in la rabo beelaha Soomaaliland isku dhacaan in madaxdii hore airportada lagu rasaasaynayo in la rabo beelaha dhan in maanta soo dilaan tii gabil iyo banka awajaala ka dhacdeen ogeyn waa kicin shacab bay ahayd wax kastoo maanta socdo waynu arkaynaa shacabka la nacsiinayo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland baan arkaynaa halka la nagu wadayno arkaynaa cadowga shirka la dagaalameyno arriminayno arkaynaa waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland inta dalka qabiilkiisa iska dhigtaan qabyaaladda iyo reebka haynu qarankeena intaynu meel uga soo wada jeesano aynu isdhaafina ninkan oo
mudaharaad silmiya aynu soo baxno aynu xaq banu leenahay shala tolo koodu yahay raadinay isbedelka idigu ah isbedelka raadinaysana maanta oo ka fashilka noqday waxaan markaa leey war inagoo gacmaha haysanaa aynu xukuumadan ku mudaharaadno aynu kicino shacabku ha badbaadiyaan xukuumadan dalka laga badbaadiyo haddii aynan u kicin saa ku daawano meel fog baa Soomaaliya laga dooni doonaa marka waxaan leey badbaado kaliya maanta haysanaa waa inaynu kacdo shacab sameynaa waa aynu xukuumadan lahanaa sida gudaheeda Soomaaliland dhan walba ku soo idlaysa qarannimadii taasi maxamed maxal bay noqonaysaa waxaad tiri kacdoon shacab waa in la sameeyaa ma dabkaad sii shiday mise waxaad ku talisay waali kale waxaan ku taliyay in shacabka Soomaaliland mudaharaad kacdoon marka ka hadlayo ma aha mid la jajabin wax la leeyahay laakiin mudaharaad salmiya oo magaalooyinka waaweyn ka dhaca oo xukuumadda laga soo horjeedo oo inta baarlamaanka la yimaado runta loo sheego la yiraahdo wax imika u baahan impeachment in madaxweynaha lagu qaado waayo qarannimadii uu ka hor yimid jiritaanka Soomaaliland ka hor yimid cadawgii baa ka armiya maanta arrimihii gudaha wada ka sasay beeli Soomaaliland la iska wada horkeeriyo marka takilid u baahanay waa in xukuumaddan meesha la dhaafiyo la yiraahdo inta ka badan Soomaaliland ma qaadi karayso inta ka badan kuma sii daawan karayno in shacabku ay haysta ay mudaharaad salmiya kaga soo horjeedaan ay sameeyaan waayahay arrintii gabagabada waraysigeenan arrinta e-visa iyo sida ay u saamaysay dadka Somaliland ee imanaya waddankoodii waxaa la maqlaya dhawaaqyo ka soo baxaya dhinacaas iyo Addis Ababa iyo dalkaasi Imaaraadka Carabta sida Dubai oo kale iyo meelo badan oo ay dadku ku xaniban yihiin arrintaasi e-visaha halkuu xaalkiisu maraya wallahi waa ayaan daro waxaan arkayaa oo inuu la wada soconnaa in shacabkii Soomaaliland ee dalkooda u soo hiloobay ama dalkooda imanayay inay soo guryo noqdaan ama faamiliyada qurbaha ku sugnaa Soomaaliland ku soo noqonayay inay maanta dhibaato culus la kulmeen guud ahaan caalamka meel kasta airport kasta lagu xiray e-visa xukuumadda taariikhda dareen liidatay ka talisa Soomaaliya maanta inay kaga adkaato e-visa shalay baynu ogeyn oo hawadii Soomaaliland la urur kuwii wali alanka shacabka soo hor taagan yihiin haddana maanta in e-visa lagaga adkaada waa ayaa daro inagu habsatay xukuumadduna ay wali alanka shacabka qancin laadahay waxaynu arkaynaa wasiirkii afiyashka joogay oo kelmaddu soo qoraya noqoto kelmad arrinteeda ay qoran xataa oran kari la e-visa ka hadli kari la oo shacabku qancin kari la maanta airportada weyn waa lagu xanimay Ethiopia waxa jirtay waqtigii Muuse Biixi inay Soomaaliya tiri diyaaradaha joojinaya oo ma tagayaan Hargeysa ama Somaliland Ethiopia iyadoo ku dhigay waa tii diyaaradaha Ethiopia la tiimanayeen Hargeysa toos soo galayeen waayo waxay naga dhaxaysay heshiis iyo saaxiibtinimo qadiima inagoo gaadna heer aynu Ethiopia inooga dhawaato mandaqada maanta tii inooga dhawaatay inoogu xun oo Ethiopia war arkayna madaxweynaheena markuu tagay anuu Addis Ababa joogay lama kulmin Abiy Ahmed lama soo dhaweyn wasiirka soo kaxeeyay wax laga xarunta militariga ama ciidamada ma aha wasiirka shandhig ma ciidamada meesha ciidamada la geeyo waa madaxweyne dalka socda in maamuuskii qarannimo iyo dalnimo la siiyo hay'adul ra'iisul wasaare la kulmo la soo dhaweeyo ma dhicintii taa waxa keenaysa inta safar u baxay ka safar Kenya arkisay waxa soo dhow waxa keenaya inaan maanta Somaliland ayna xukuumadan cidna qiimeeyeen in alla arkayo xukuumadan inay Soomaaliya ku wato marka waxaan leeyahay waa arrin runtii aad u fool xun oo maanta e-visa shacabka Somaliland la daalaa waayahay marka ka hadlayo wax kale oo ku jeedinaysa dagaalayo colaado kale marka waa la guuleystay e-visa qoladii Soomaaliya taagta darneed bay naga guuleysatay xukuumadana iyada raali ka waayo premium banka waxa qayb ka aniga jaamac gaabush la yiraahdo oo isagoo keenay magaalada Hargeysa keenay kamid aha marka waa arrin lagu wada socdo arrinta e-visa inay iyaguna la qaybtooda qaataan waa arrin ay isla ogaayeen xukuumadda iyo Soomaaliya waxaad ku cadaynaysaa jaamac gaamush iyo premium banku inay e-visa wadaan oo iyagu ka dambeeyaan waxaan ku cadaynay waxa la hayaa YouTube-da meel walba ku jirta markii Nairobi laga furayay premium banka jaamac gaamush lagu soo dhaweynayay oo isna hadalka la rajayay khudbadu lahaa waxaanu soconaa guud ahaan meel kasta Soomaaliya degtoonu tagaynaa Soomaaliya Somaliland hadalkiisa kamid ahayd oo kadibna waa timid dad la keenay marka waa arrin la isla og yahay imikana qayb ka yahay waana arrimaha lagu soo xidhay qadar maanta waxaad arkaysaa dalkii shalay ku diidana ee qarannimada ay jiritaankaaga diidana kula dagaalamayay ee lacag ku bixinayay raadinay midnimo ee qadar in maanta Somaliland noqotay gabadhoodaysa oo intay tagay lacag la soo qaatay iyagoo goobta taagana lagu yiri anigu waxaan ka shaqeynaa midnimada Soomaaliya ayna ka jawaabin daratoolna Hargeysa yimaadeen oo wali ku dhex jiraan arrintii shacabkana la intisaab lagu ridayo marka runtii waa arrin iyo ay ka dambeeyaan oo la isla og yahay
وصوبته وحل كريلاين وصوبته الشعب هو قد كريلاين وصوبته ولي آلين كاي وصعطه EFC ميلول بقى الشعب كل الدبين يتوبي ولي قد EFC نو هرب بقى مانتن شي سوماليا نقطة نجات كاتي ودمر يطلب بدر كسر الشعب كيرونتي مانتن دو في كريلاين وحتى باركو ضد كيما كريلاين أصلا لقد جينا EFC صوبته حتى تجي سوماليلاند دولتي الشعب كنت تقرأ أي إيجابيين أي نقطة من إيجابية الله شقينا الصومالية الكوا يندرين وجاب ستين وهي بقى على الشعب الصومالي هدي أين الهريين سكتورين أين الحكومة نسنافن هذا يمكن درما نوسي شريطونتا وما تصنتهاي كاسوحة وها محمد أحمد عيقة وكسوغان دالكاسي كندا إسلامر كان مدة لح سنة ميلاها كشقيني إذا عدل إلى هذا CKCU وكشقيسة دالكاسي كندا ahna aqoon-yahan dhinaca falanqeeya siyaasadda oo dhinaca siyaasadda baraha bulshadana aad ugu soo bandhiga doodihiisa kala duwan waa mahadsan tahay maxamed هذه هذا ما هذا عمر علو تقول سلام يا دقيقة بوشة تيفيبا وانتي واحد تيفيبا كل يهتمان سسنانا يا عدالة وأديك بوشة الصومالية يقول هذا مدة الصومالية ما كذي شجابا وكذا هراء صورة شعب الصومال الذين أبيين وركينا وربحنا السوق بسمر والبعض وكأداني سلام يا دقيقة بوشة تيفيبا